السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. haddii aad tahay qof dadaal ugu jira inuu iska jaro caloosha saayidka si dabiici ah waxaad muuqaalkeennan ku arki doontaa qaab dadkii isticmaalay ay ku sheegeen qaabka ugu wanaagsan ee lagu jaro caloosha. Si aynu qaabka u sameynana waxaynu u baahannahay inaynu soo diyaarsano 4 shay oo kala ah caleenta shaaha cagaaran, wax yar oo sinjibiil shiidana, iyo caleenta geedka la yiraahdo nacnaac, iyo waxoogaa ka mid ah midhaha yaryar ee aynu u naqaano khamuunta oo iyaguna shiidan. 4taa shay oo aad isku dartay ayaad ku karinaysaa biyo, waxaana dabka u daynaysaa 20 daqiiqo. 20 daqiiqo kadibna intaad dabka ka qaado oo aad qaboojiso kadibna aad kala miirto ayaad cabaysaa 1 koob oo yar 3 waqti oo kala ah: quraacda 30 daqiiqo ka hor, iyo qadada 30 daqiiqo ka hor, iyo cashada 30 daqiiqo ka hor. waxaanaad wadaysaa muddo bil ah oo xidhiidh ah. waxaana baraarujin mudan 2 arrimood oo kala ah: si aad meesha uga saarto miisaanka ku jira caloosha waa inaad nidaamisaa habka cunto qaadashadaada, iyo arrinta labaad oo ah markaad isticmaalaysa dhirtan waxa muhiim ah inaad iska hubiso inaad ku leedahay xasaasiyad. ilaahayna dariiqa saxda ah ayna waafajiyo dhammaanteen.